rabnaa saad u soo xulateen inaad uga dhabaysaan waajibaadka marka la gaaro waxaan idinka codsanaynaa in aad mar walba maanka ku haysaan shacabka Soomaaliyeed oo maalin walba dhiigooda lagu baayo inaad ka hor istaagtaan inaad cadowgu aad casharo lama ilaabaana u dhigtaan kadib marka aad tababaradiina dhamaystirataan insha Allah waajibaad culus ah u socotiin tababarra adaga mari doontiin ragga meeshaas uu ku kala hari doona taas waxay ku tusaysaa inaad shuruudahaas ka soo gudubtaan in aad u qalantaan inaad ka mid noqotaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya laakiin weli waa dhimanta inaad si fuula uga mid noqoto oo sarkaal ciidan ama askari ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo la xisaabsan karo aad ka mid noqoto weli shaqadii iyada ahayd waa dhimanta wax walba oo dunidan yaalo waxa ugu qiimaha badan oo qofka bani'aadanka ah uu sito waa naftiisa taas inaad miiska keento oo aad tiraahdid dalkaygi iyo dadkaygii baan u hurayaa wax qof walba oo ku dhiiran karo oo saqanimadaas heerkaas leh ku dhiiran kara ma waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiisha dugsigan maamusha iyo saraakiisha loo soo xulay in ay maaragtaa idin hogaamiyaan sida quruxda badan diyaargarowga wanaagsan iyo ka warqabista iyo maaragtaa inta la idin diyaarinayay sida ay ugu dadaaleen ilaa iyo taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo uu hogaamiyo taliyooda waan uga mahadcelinaynaa sida qiimaha iyo qayimka leh oo ay u diyaariyeen ay u soo xuleen dad u qalma inay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka mid noqdaan waa mahadsantihiin waxaan idin rajaynayaa guul waxaan idin rajaynayaa safar wanaagsan waxaan idin rajaynayaa insha Allah in idinka oo maaragtaa ku soo guuleystay tababaradiina oo qarankan inaad u adeegtaan diyaar u ah inaad noo soo laabataan